بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل ولا شيء دكتور هذا وأنا ما هنقيا هرت أولا وآخرا سيدا في عن متقنا كأنه أي صاحبتي تقول ربي سوكله أصحابتي تقول ربي سوكله أنا قلفت جاي أقول الله بكرة أسكت حجانا هنا أنا دكتور هذا يعني أنا جايبة كبرنا قصة صارت حل جاي مدرسة كحل جوجو أضربوها ولك أنا جاي نصوهن جسيبة إياه أنا جو إياه هنا بأنا الحمد لله كصوب بحنا تيقول كصوب بحنا عدي كلاس كده هاي عدي كلاس دي كده اللي كحجة أصحابتي دي كليك هاي لما أرك قبل هو ينمو كفشلنتي iyo dhakhtarnimo dhamaantay dhakhaatiir baan nahay dhamaantay waxaan nahay maxaadana hooyooyin waxaan fadliga waxaan ku dheerayn fadli aan dheeraado ilaahayna siiyay nicmada ay hodan ahayd oo tusaale nool noo ahaydna dhex joogtay iyadiyo imika umushay oo matqana umushay ogeyd umba hadana kalaaska kala timaadaan wayba joogtaa fadhida kolka waxa soo dhan way ku riixayaan kolka waxaan leenahay annaga ayaa waxna soo tartay khibradda idinkuna ka faa'iideysta maadaama aad maanta chance u hesheen inaad ileediyo دوب عاد هالشيء أنا قيادة بركت كلام دوس يعني إذا كنا كيوجد بكرتان أرضي دايم كمرسن كديجتها يضد كم تقعنا محي هذاني دخاتيرته عصب لما هو لقى برنكرة حنج علينا أنا صاحبة ديت كوير عليسة حبدي حاجة شرم الكياش إن شاء الله السلام عليكم. الرسالة هذه أبغى أقولها علينا وحنا عكسين ولوب هاي الوضع دنيارة هاوشن أبغى بشيء سكاي وورا يا مرتي وأرين أدون عكسينه بقعدين بدن قف كستابا مدن أنت أو قرنا يا هدي أو لو ذا أو لسه حن وحن نقول إن تيم لسن جيل لسن ودن لسن أو أقوان هذه عقل هذه خبرة عامة لسن وأنا أرين لوب هاي بضبطان وأنا بلينا وأنا بقعدين إن أديات بان دمانتي بدي كويس كدوما هذه تاي خبرة هي هذه تاي أجازين كبوقتها وردين ما علينا وأنا كفر أحسن عن مرش النوع عن وكلا إذا سيجوا بتيسانا ولا كل يرجعني كسوق الجلياشنا إن جواه نوع عن وكلا أبد للسيانة وحي أي كقعتين يجونا أرين نكونيكو مالين ملو كقريب جلاه عدد كل السيوة ده جنبان يجنا وصول جديريا ودهان تنادي بلوم مسيتي. والله شو هذا ما تسوق هاي هريسة هرو السمان عن مقال إبك هاي كوة لكن بدل ما ندي دوجه إن بدل ما ندي دوجه هاي وحن تلمام من لبيرو قطبه moral of the history sheekada waxaan kala baxay midi waxaan dareemay in ay ku jirto xalay qaano maqaalkana Suud Cabdiraxmaan it's just all about determination ka go'naansho xadaafa jiray ka go'naansho waxba riixitaanka waa saddex arrimood midkood buu ku fadhiisan baashara kunta la soo mataqaanaan kunta naalada waxa la tilmaamay kunta waxa ay galado Ivan egg is broken by an inside first life starts but if an egg is broken by an outside first life ends. Great things starts from this side. وعتنا هذه كنت هاي نسوق قادمه يدو تعله هو يدي جاجدي ونسنرا يدو علمه كعيون وجناي وكنت هاي نكلة شبين جبيه ده تدل ما يرى كتير من صوص صارنا مرلمي بلامس ما بلامس لكن كورا ده إسكيدو حب عصت حاسب حيا نروح السباب بلامس وعلى great things starts from the inside شيء كستوي نلقوك بلاما كده يدو وحوين كتيري كتيريدان waxba suura gali marka hablo wad amaati wad la dhacdeena xabad aan niga daba tago iyadoo halka ma ay gaadeen waxa la yiraahdaa kullu rajulin cadiim waraahu imraatun cadiim ma tooran karin meenan ma tooran karin every great woman behind a great man Allahu naxariiste marka geesi baa ka dambeeyay arintaasi waa iga taa arinta labaad waxa weeye dhul isdhigeedii matawaadu calillahi faqad rafacdu waa daboobaysa marka way yarzuqu min haythu la yahtasib to meel aanad filin baash loo mishaar ba soo dhacay markii batri qalalowd way badanaysa kuwa dambe badan oo rajeynaa insha Allah dilay keedisho saaxiibka iska waan bogaadinaya xirfadahana in la badiyo waa bogaadinaya this is a moral history in badan waan dhageysan doonaa waan rajeynaa insha Allah inaan contact kala qorano waxa weeye si khaas ah isugu xidhanay biidnillah tusaale nool bay dekeedin tahay si aydan hadhow tolo nooga warramin feminism iyo gender balance iyo inamada xafiisadda ka soo baxay way thank you very much salaamu alaykum marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala in hawada inoo sugnaatay marka xigtana waxaan u mahadcelinaynaa barnaamijka khibrad wadaag oo barnaamijyadii saxaafadda looga baahnaa isagu naga dheereeyay barnaamij tayadiisa iyo khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa wata oo halkan ka wado ayaan marka hore isagii hawlwadeenadaba ku bogaadinaya markii xigta wax jeclaan la horta inayna noqon markii horeysay doctor hodan kulan noocan la soo casuumo
runtii intaan fadhiyey wax badan baan faa'iidaystay wallaahi runtii oon hal kusoo koobi karin. waxaa ka mid ah gabadh kastoo shaqaysa ama wax barato waxa u qorshaysan markay raadi yeelato inay shaqadaas kaga tagto hadduu ninkaygu kafeynaya bay wada aaminsan yihiin waxaan anigu u shaqaynayaa marka laakiin hodan waxaa leeyahay waa tusaale nool waxaa leeyahay waa gabadhnimadii oo qofa dadaalkii oo qofa aqoontii oo qofa iyo weliba ixtiraamkii iyo say bulshada ay ugu dhex jirtay nooga soo sheekaysay kama maaranto noloshu in lagu xidhnaado ilaahi subxaana watacaala qofkuna uu ilaahay isku xidho waxaa laga yaabaa in dhalinyar badan maanta ay ka saartay inay ama xildhibaan amaba wasiir amaba qof la yaqaano deeyo qof ay u daba fadhiisanayso in maanta layska dhiridgareeyo xabadda intayna halkan joogta intayna halkan joogtina aynu sii gaadhsiino fariinta ay hodan inoo dhigtay iyo jaranjarooyinka nolosha adag ee ay kasoo gudubtay dhakhaatiirtu iyagunba isku koobay talada hodan kulli waxay u taallaa qof kasta gabadh kasta welina si gaara gabdhaha ama gabadh wariyaha ahaato ama gabadh ganacsata ahaato amaba fiilad kala duwana nolosha ha ka shaqaysee marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hodan su-aashaydaan weydiinayaa waxa weeyaan hodanay sideebay gabdhuhu caqabada soo noqnoqotee ah inuu guurka ka baajinayo waxbarashadii iyo weliba shaqadii dhowr talo oo kooban oo lagaga gudbi karo anaguna ka midna insha allah. Assalaamu calaykum dhammaantiin aad baan idin salaamayaa koowaad waxaan mahad celinayaa barnaamijkii khibrad wadaag mar labaad waxaan mahad celinayaa macalinkayga Axmed Sky marka hore waxaan weydiinayaa Dr. Hodan oon waxyaalihii aan ka dhageysanay ka faa'iiday waxaa ka mid ahaa gabadhu si kastay u leedahay dream wax kastoo caqabada ka hor yimaadeen inuu joojin tusaale ahaan caqabada ugu weyn ee horta magacayga waxa weeyaan Khayriye Maxamed Cali waxaan dhigtaa faculty of project management in Amoud senior iyo waxaan dhigtaa faculty of nursing oo hadda senior ah Golis ardayda warisiga iska baxayanahay caqabadaha u horeeya aan kala kulmano bulshadeena dhexdeeda waxaan mid aan xataa orahayo aan maqlo iyo bulshada qaar wax ka jirta gabadha wax laga oranayaa adoo gabadh baa tahay wax kasta wax baratid kullayba waxa tahay tii virtual gurigeegan joogto oo in ciyaal haynaysa oo aan bixayn oo odaygeedu soo shaqeynaya oo ciyaal un dehayn karta oo wax barin marka waxba isku mashquulin waxbarashada taas dadkantooda badan dhaadaan hablaha maqlayay ku dhigsan doonaba waxaan yani ugu sheegay inay waligood hamigooga in yarna ay ka joogsan wax doonaan baa la soo wajahanay أنا قبضة هريان وأنت سؤال مو ديني هوا هذا أنا وحنا كده البنية طلب هدو صورة قلا أنا كودي بين هدي أتكرتي هذا بدي سمين كرتها هدي كلنا أظن يصيبين حولي ماله markaan neersinhaa waxaan heli waxaan doon jirnay inaan helo practical badan ama dhaqtarada badan aan tago dhaqtarada qaar markaan tago waxaan waxay iga oran jireen one month ama two neersub oo nagu soo noqday hadda waxaan shaqaale badan baa jooga arday baa practical nagu qaadanaysa marka caqabad waxaan jeclaan lahaa inaan dhaqtarkeena weyn si volunteer aan joogo ama internship hadii ku suurta galayso wax miciid dhamaantiin aad baan idinku mahad celinayaa su'aasha aan rabaa inaan weydiiyo wax weey in medical school marka la joogo ardaydu badanaa waxay wajahaan dhibaatooyin aad u fara badan way ka mid tahay qofku markuu wax dhiganayo haddii aan idhaahdo medicine 7 years baa la dhigtaa hadhow toole marka la gaadho ilaa 6 year ama 5 year marka la gaadho ardayga istiigad buu istaba wadaa oo waxa weeyaan waxyaalihii sanadadii hore uu soo dhigtay waa ilaawaya ma wada xasuusan karo ma weli ma aragtay ama ma haysaa khibrado ee qofku mastili waxyaalihii uu soo dhigtay uu ku xasuusan karo waayo caafimaadku isku xidhan yahay oo haddii lagu soo dhigay sida uu jirku u shaqeeyo hadhow toona waxaad dhiganaysaa diseasekii iyo waxyaalihii ka khaldamayay marka qofki waxa laga yaabaa inuu soo ilaawo intii hore sidii wixii u shaqeeyay inuu soo ilaawo hadhow toona macallimiintiina ay canaan halkaa kala daba yimaadaan oo yidhaahdaan waxaa ma akhrisaa akhriskii inuu yar yahay su-aashaasaan jeclaa inaan weydiiyo mahadsantii su-aashii u horeysay waxaan ka jawaabi doonaa su-aalaha su-aashii u horeysay waxayna weydiisay shukriye cabdi cabdilaahi oo ka socotay ka qaybgalayaashii saxaafadda waxayna weydiisay sida la isku waafajin karo hablahan ay waxbarashada guurkii ka habsaaminayso soo waxaan idhi guurku sidiisaba waa calaf soo markuu alla qadaray ayuu soo deliyay ama inantu ha yaraato ama ha weynaato laakiin muhiimaddu waxa weeyaan ka go'naansho inay la timaado
hadday gabadh rabtaa walba inay wax barato ama shaqaysato iyaday ku xidhan tahay laakiin maxaynu nidhi dee keligeed maaho meeshii lamaanaa jooga dee lamaanaheygii waa inay kala adhiciso garab u tahay waa isaga yay kabaysaa waa isaga maanta maxaa la yidhi maxaa taa hees baa odhan jirtay maxay ahayd rag baa naaga isdhaafshay soma naagaa rag isdhaafshay so markaa haddee gabadhaadu shaqayso wax baratay dee ragga kale wax baad dheer tahay soo raggana waxaan leeyahay dee hablaha caawiya oo garab istaaga insha allah su-aasha kale dr hodan ayaa ku xigtay oo ina weydiisay safarkii Germany waxaa laga yaabaa timekan oo ka cararay waan dul maray soo safarka Germany wuxuu ahaa safar course seminar ah waxaa ka qayb galayay 30 dowladood oo adduunka ah inta badanna waxay xooga saarayeen tropical pediatric dadka ku nool maxay daanay tropicalka wadanada soo koraya under developingka ah ayay xooga ku saaraan sanadkiiba hal mar buu dhacaa tropical pediatric ay raadaan medicine oo caruurta xanuunada ku dhaca wadanada aan dhaqaalo buuran haysan ayaa lagaga shiraa soo waa meesha isugu yimaadaan buugtan aan akhrisano blue book yaraa la akhrisan jirnay inta badan pediatriga gaarleynada la soo saaro soo waxa ka soo qayb gala WHO soo waxaan la kulmay oo chance u heshay saantii weynad ee blue book qortay oo ka timid Ingiriisa soo dadkaas expertiga iyo waxa isugu yimaada dadka ka shaqeeya ee way aragnimada u leh soo waad ogtihiino way adag tahay qof Soomaaliya baasaboorkii Soomaaliga haysta Soomaaliland warkeeda bada Soomaaliland ba ka soconay waxaan ugu qaatay muddo inaan dadka barnade halkaasaan deganahay geeska qaaradda Afrika soo qaad hoon Afrika ka tus qayb taayirka ku taala casaanka yara calankii Soomaaliland dhex dhignay soo qof kasta uu yaabana dad aanan Burma iyo Birmingham dad aanan weligeeba arag xataa wadanaan maqalba ayaa ka soo qayb galay ku tagidiisi aad buu noogu adkaa 18kii badana ka qayb galno laakiin fiisaan weynay adsaba tag halkan tag wadagsan dhibaatada ina haysata baasaboor la'aanta baasaboorka Soomaaliga xataa laftiisa lama aqoonsana taa laftigeeda waxaan oran karaa ilaahu baa noo fudeeyay وهيسان سفارة joogta Kenya markaan ula tagnay baasaboorka way igu soo celisay saas ay igu soo turto waxay igu tiri don't you know this is not working marka waxay naga soo qaaday wadan aan jirinba markaasaan ku waxa ilo adeer invitation badan baan haysanay invitation-kii waan tusnay markaas saasay nagu aqbaleen oday xaga markaan naga soo bushkarinayo aad u xiiseynay ayaa markaa joogay wada Ilaahay noo diray meeshii barkaan tagnay dadkeena waad garanaysaa halkay hodan u dalneedahay waan garanayaayo waxay doonaysaa Jarmalka maxaa isaga dhiib weyday ku soo celiyay hatta qaraabada waxay ku bushkareynayeen marka Jarmalka tiimaday chance weeyaan waxa ay yimid habrada galka deganoo wada kuwii maxay daan mukhallasiintii waxaan ku leeyahay anu meel sharaf ku leeyahay ka imiday halkan si sharaf laan ku imiday dada wali qaxootiyo 10 sano jooga sharciina helin maya matagay marka waxaan ku adkaystay inaan sharaftayda iyo halku Ilaahay gaarsiin karaamadeeda aan ilaaliyo waadadii baahan baan ka tagay ta kale aan ogaaday waxay ahayd anoo markaan tagayna waxaan khibrad ka soo qaata oo dad idinka tagay oo wadan horumaray oo Jarmalka wadanada caafimaadka aad ugu sareeya khibrad ka soo qaataan salahayn laakiin waxaan ogaaday in aanu ka khibrad badan nahay waayaga waxa isdaba taagan intaas oo senior soo ardayga imika anigoo kala master iyo waxaan lama wareysanayo soo waxa jooga expert sub specialist ba jooga soo kaasa loo daba fadhisanaya kiiska xanuunkiisa wixiisi waxay ku leeyihiin gamaahana laaban soo markaan anagii wax kastaba halkii practicalkii la bilaabay waxyaalihii la bilaabay dadka medicalka fahmay wax kasta waxaan garanaynaa waxa ka soo baratay wax kasta la marka dad wax oran jiray aniga Dr. Faadimo malaga ka salaamayo Faadimo Ali waxaan ugu raadin expert to lady expert from Somaliland bilaadeen dan waxa ka mid noqonay macallimiintii taasna waxaan ugu hambaleynayaa aasaasiyaasha jaamacadda Amuud waxay inaga muday inaan u duceyno waxay inaga soo saareen mugdi iftiin bay noo soo saareen haddaan tiyaan ku jiray 97 before haddaan ku sii jiri lahayn ka war dad qalban noqon lahayn sama ugaadna ka mid noqon lahayn soo yaani chance bay noo fureen dadkeeni baa inoo fikray fadhiistay inoo sadgareeyay taas maanta keentay inay hooyo kasta iyo aan maanta isku hayno maanta meynaan hayneenba hooyo wax ma baran kartaa iyo wax ma la qabsan karaa markaasaan ku jeero xabdi naqnay halkaan soo gaadhay way waxaan isku haysanay wax jirin ciidamada aqoonsanaas lahayn dan waxaan ogaanay in aan knowledge kaagu meesha ku geeyaba aad tagayso waxa kale xusud mudan dhaqaatiirta in bay naga tagtay
saddex dhakhtar oo family medicine ka tagay saddexdiiba ingiriiska dhexdiisa ay ka shaqeeyaan isbitaallo waaweyn just taxaanu bay galeen way baaseen from Amuud ay ka soo bilaabeen ilaa iyo master to family medicine kuwii haddana waxay ka mid yihiin dhakhaatiirta ka shaqeysa ingiriiska soo markaa jaamacadeenu rajo weyn ayay leedahay soo waa halkaad is dhigto maxaa riba halka shirkaas inta lagu gowraca soo markaa ninba halku is dhigo taasi way la dheeraatay safarka Jarmalku taasi aan u diiday inaan isdhiibo soo waxa wax ku tahayna waa halkan dadkii intaas oo dhan tahriibay ee tagay wax uma hayaan sharci ma hayaan ayar bay qaataan taanday galaan waxa ku jira barstationada la jeedinayay dadka jooga ee qaxootiga caafimaadkooda say u daryeelaan daabadagan weydiin ku kaar yar mareed hoo lagu daba sharcina ma lihidi caafimaadkaaga sidoo la tacaasha aniga ka warrama ku adoo Jarmal inta joogay marka duruufo adag bay ku nooyeen dadka taga laakiin hadduu ilaahay wadankaaga wax kugu siiyo taa wadankaaga wax ka qabo mukaaga hooya ida sharaf ku leedahay su'aasha kale hadiya ay ku soo xigtay oo aad ugu hambalyeeyo wadada ay khayriya Soomaa igraal khayriya oo isku wada labo subject oo kala fog Soomaa business caafimaad soo galay Soomaa oo hambalyeeyo khayriya waxaan la xiriiri doonaa adresskaaga siin maamulka isbitaalka kugu xiriirin bathroomka soo dana codsi waan ku sameyn insha Allah soo contact gaar adres soo sameyn hadii la helo Ahmed Eid medicalka wala ilaa buuri inta dambe waa run imika waa la bedelay jaamacadda waxa la isku sameeyay hab isugu xirmi karaan oo still qolada imika first year ka cabanay leeyihiin iyo second year kuba waxay ka cabanayaan system kan loo dhigay jaamacaddii loo bedelay waa system adag waxa la sameeyay hab la isku dhigayo physiology basic anatomy physiology dan lisiiskii ku dhacay organkii wixii oo dhan hal mar bas la baranaysaa organkan muxuu yahay sidoo uu dhisan yahay sidoo uu abuuran yahay muxuu qabtaa maxaa ku dhaca see loola tacaala calaamadihii ku dhacay imika waa la bedelay laakiin xilligeedii ama xilligii hore ama ardayda imika ku jirtay laga bilaabo 10 year ilaa iyo 6 yearka ah waxa laga bixi karaa inaad sameysaan group study soo inaad ka tagin mar walba inaad isku xidho soo marka chapterada la dhigayo xataa kuwa kale ee markaan soo dhex galno internal medicine ama gudihii aan dhex galno mar kasta markuu chapterku bilaabmayo wuxuu kuu sheegayaa lungs hadii la dhiganayo sababkii sidoo u shaqeeya araar yar buu ka siinaya waxyaalaha ku dhacana araar buu ka siinaya disease-ka ku yimaadana araar buu ka siinaya markaasuu detail u dhex galayaa xanuunada ku yimaada noocyadiisa iyo si kala yihiin soo mar walba adeeg ugu xidhan tahay inaad tadamuun dabada haynine that's why aan u leenahay medicine waa hawl adag muxuu yahay waxa la rabaa tii bilowgiya tii dambe inaad isku hayso haddaad tadamuun hayso dee waa sii daynaysaa halka dambe adoo taagan unbaa xagga dambe lagaa tegaya soo markaa sababtu waa adag yahay waxaan xasuustaa markay ciyaalku seexdaan waan xadi jiray akhriska halana xasuusto adeeg smart buu ahaa aad buu maadkiisa waxa ugu fiicnaa dan wuxuu oran jiray akhriska karaamada ka qaata karaamadii akhriska ayaad qaaday buu oran jiray ku ciyaartay akhriska time buu leeyahay time-ka la hurdada ka faa'iideysan jiray tan kaco on ka soo duso in qolada isku soo xireen jiray waan kuwa maxaan u akhriyaa waa sayna u kala fakan soo marka ardaygu marsi markuu galo nasasha kuma taalade waxa wax u baranaysan oo uga waa bil aadan ardayga AT-ga haday birtu khariban wax ma noqon maayo wala sixo sama computerka xumaadada waa aalad yar xumaata laakiin ardayga bil aadan baranaya waxa baranaysaa human wixii ilaahay dadku abuuray ugu sharafta badnaa ayaad adigu mas'uuliyadeeda saarto tiri anigu waxaan noqonayaa dhakhtar waxaan rabaa inaan qofkan daweeyo mas'uuliyad baa saarto mas'uuliyadaas lama bay noqon inaad ama ku guulaysato ama ciqaab ku madaasada adduunka aakhirada si aad taawaga baxdo waxa laga rabaa maradu ilaahay ku dooray adna aad dooratay inaad xanuun badan la timaado top to inaad isku hayso bilow basically ilaa ta u dambaysa isku hayso markay habluhu shaqo tagaan hablaha dhakhaatiirta waliba magaca dhakhtar waxa loo haystaa lab dhakhtar waxa loo haystaa lab baa loo haystaa inuu lab dhidig yahay nin yahay gabar hadda dhakhtar tahay neers baa loo haystaa gabadha ardaygaagii aad marinaysa waarka lagu oranayaa igu yar daadu soo boqoto shaaca soo xidhato dhakhtarka ii soo jeedo bay ku oranaysaa hooyadu saaxiibada waxaan ka faa'iideysanayaa hooyooyinka soo waqti waxa haystaan ayna soo haysan dadkii idinka horeeyay waxa haystaan waqti aad haysataan hooyo ku daweyn karta ku wareysan karta qalliin ku sameyn karta ceebtaada asturi karta ku soo banbaxay oo banaanka ku joogo diyaar ku ah waxa leeyahay hooyooyinka aamina oo hablaha dhakhaatiirta ah aamina waxa ku oranaysaa hablu way naxaan baaran qalliin ma garan ku idhaahdo soo tirina way naxaanta ku ogolaataana
way naxaan baa dumarku soo sida hablaha baabuurta wada loo aflagaadeeyo soo markaa taasina waa caqabad jirta tan waxaan uga faa'iideysanaa dadka dhageysan doona inay aaminaan dumarkooda wax u soo bartay waxa waa naftood hurayaal hooyo wax soo baratay oo haddana habeen iyo maalin soo jeeda waa naftood hurayaal baan leeyahay haweenkaas waxaan leeyahay hala aamino oo ha lagu xidhnaado insha Allah bismillah awalan salaamu calaykum magacaygu waa bilan ibraahim cabdilaahi dhigata jaamacadda camuud kuliyadda of nutrition marka hore waxaan u maqnaqayaa doctor hodan ama hooyo hodan oo waqtigeyga iyo khibradeeda iyo aqoonteeda inoo soo bandhigtay jasaakumullahu khayran maan leeyahay su-aasheedu waxay tahay hablaha iminka markay waxbarashada iyagoo dhexda maraya aw calafkoogu yimaado ay ka baxaan iyo sidaad inigu ugu soo halganteen adi iyo hooyooyin badan oon arkay faraqa u dhaxeeya waqtiga iyo waqtiga iminka inkastoo waqtigu isbedelay laakiin gaabka iminka u dhaxayn karaa muxuu noqon karaa su-aasheeda labaad waxay tahay faculty-ga aan ku jiro waa faculty of nutrition baahi badan ay bulshadu u qabto ay familiguna uu kasoo bilaabmo hooyo iyo ilmo si aan bulsho caafimaad qabto u helno dan anigiyo group kale oon isku galaasnahay waxaan go-aansanay inaan xilliyada fasaxa aan tagno meel kastoo goob kastoo caafimaad dan ay caqabado badan ama su-aalo badan isweydiino ma layni soo celin karaa iyo cabasho badan oon ka baqayno dantaana maxaad nagula telin lahayd bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa Catiye Maxamed Cabdullaahi waxaan ahay arday ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Eelo gaar ahaan qaybta caafimaadka waan u mahad celinayaa maaragtaane daadiyaasha barnaamijka khibrad wadaag sidoo kale waan mahad celinayaa hooyo hodan sidoo kale maaragtaane khibradaha iyo tusaalaha fiican ay na siisay nolosheeda iyo halgankayga waxbarasho su-aasheeda haddaan u imaado tusaale ahaan marka la joogo ardaygu uu dhiganayo iskuulka qof walba hobby buu leeyahay iyo wuxuu ku haminayo hadhow laakiin markaad iskuulkii soo dhamaysaad aad jaamacad soo galayso qofkii maaragtaane wixii hobbigiisii uu ku fikirayay dad yaalo fara badan oo ay familiga ugu horeeyaan dad kale oo maaragtaane khibrad u leh oo jaamacada dhigtay ka mid yihiin waxay isku dayaan hobbigaaga inay maaragtaane ka leexiyaan tusaale ahaan anigoo kale education ma ku fikirayay kadib markaan aan isku diyaariyay education kale waxa lagu yiri education halka lama dhaafo ardaygaagii hadhow toole ka sareynaya yaani waxyaalo challenge dee qofkii laga leexinayo maaragtaane hobbigiisii ugu dambeyntii waxay ku soo ururtay in caafimaad maaragtaane ay noqoto maaragtaane hobbigaagii mid aan ahayn la keeno oo nursing ah kuma maaragtaane kama xumi imiga waan dhigtaa hadii waxaan ku jira sanadkii ugu dambeeyay hal semester baa hadhay insha Allah intaana waxaan rajeynayaa si khayr loo dhameeyo waxaan weydiinayaa maamada ama doctorada in maaragtaane ay sheegto challenge-ga waxyaabii laga gudbi lahaa oo qofka hobbigiisa saxda u gal lahaa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Xasan Caruush Cumar waxaan ahay arday kamid ah jaamacadda Eelo kuliyadda public health-ga kulli su'aal kuliyaddeeda khusaysa ma weydiinayo laakiin su'aalahaas leh dadyo wadaawanaya ku xidhan page-ka khibrad wadaag is weydiin karaan ama hablo badan doctor waqtigii aad baranaysay caafimaadka kulli ma jirin teknolojiyadan amba aaladan imika xadkeedii dhaaftay waqtiga ka luminaysa dhalinyaro badan iyo bulsho badan ma aysan jirin marka bal maadaama aysan deyn kareen hablo baraha bulshada amba social media oo aad u isticmaalaan iyagu aad mooday sometimes in wiilasha ay kaga isticmaal badan yihiin marka hay isticmaalaan baraha bulshada bal say isku qabsan karaan social media shaqadii iyo qoyskii amba hooyo maadaama hooyo noqonayaan saddexaas say isku qaban karaan maadaama moodo ruwaadaha marka ruwaada qaar laga metelo iyagoo hooyadii caanaseynaysa ilmihii inay agmariso ay agmariso sometimes yani waxa muhiimadda looga socdaa waxay tahay ruwaadaas in ay xadkii ka baxay isticmaalka amba xiisaha ay u qabaan baraha bulshada iyagoo intaasoo sana ay gabar soo hayd oo soo isticmaalaysay adan iyadoo hooya ay wali xiisii u sii qabtay baraha bulshada marka waxaan leenahay wiilashana ka goynina laakiin bal la isku qabashin kala talo ay wiilashuna ay marka kula raaci karaan ay ugu ogolaan karaan inay si isticmaalaan laakiin maaqool ay isku wadi karto saddexdiiba aad baad maasantay doctor intaas su'aasheeda ku soo koobaya assalaamu calaykum waan salaamay horta barnaamijka iyo ustaadka Axmed Sky iyo maamo hodan waxaan horta caawa aad ugu faraxsanahay barnaamijka barnaamijyadii hore khibrad wadaagin ka soo qayb gal jirnay nooga duwan anaga hablahaan hadaan nahay in badan baan barnaamijyada ka soo qayb galay rag bay u badnaayeen caawa maamo role model dhinac kasta noogu abaan hor joogta oo su'aalahan doonaan weydiin karno nana siin doonta yacni khibradii nolosheeda ahaan marka leego cilmi ahaan marka leego si kasta noogu noqon karto role model waxaan leeyahay waqtigaaga aad noo soo hurtay
waad ku mahadsantahay maama su-aashaan u socdaa waxay tahay waxay nooga soo warantay doctorisadu inay 2 faculty hore soo qaadatay facultygeedan ka horeeyay yacni noloshaada intaad soo halgamaysay yacni maxay kaa bedeleen baad isdhigi kartaa 2 faculty waxaad kaloo aan ka faa'iideysan karnaa maamada 3 faculty soo gashay inay hadaf weyn u socotay ay ku gaadhay imsaatan faculty ay soo gashay taa macnaheedu yacni kama dhigna inaan maanta facultygan ku jirno unan himadeeni unan ahayn isdhihi karno waan ku gaari karnaa facultyadii hanu soconay marka su-aashaydu kaliya waxay daaran tahay inaad facultyada waxaad ka faa'iideysatay ama ay kugu soo kordhin waay waxaan kusoo noqonay jawaabihii groupkii dambe bilan baa u horeysay oo dhigata qaybta nutritionka waxaa laba su-aalood bay haysay oo ah waxbarashadii iyo calafkii hablihii iyagoo wax baranaya calafkii intuu yimiday ka tagay ee gurigii ku fadhiistay waxay doorteen inay faamigii dhaqaan waxayna dhigeen waxbarashadii talabaadna waxay ahayd nutritionka iyadoo dhigata si ay awareness ugu sameyn lahaayeen communityga ama ay soo booqan lahaayeen goobihii caqabad maxaa kaga iman kara ama maxaa soo celin kara see loogu ogolaan kara cabsi inay ka qabaan in aan loo ogolaan goobihii ay tegi lahaayeen haddaan kusoo horeyno tan su-aasheeda koobaad ee calafkii hadduu calafku u yimaado oy waxbarashadeediina wadato mar walba waxaan kusoo noqonaynaa ka go-naanshihii gabadha marka horeba waxbarashada ma calafkii ku sugaysa taasay noqonaysaa soo maa mise waxaa helay dee garab bay weyday oo labay kala doortay in reerkii dumiso iyo inay waxbarashadii ka sugto labadaa mid bay noqonaysaa de haddii waxbarashada ku sugaysay markaa waa issue gaar umay jeedin marka horeba waa taas haddii laakiin markaa ay garab weyday dee waxay u baahan tahay xal kasta ay ku heli karto in waxbarashada sii wado soo qoyskuna waa de waa lamaana hal qof bay isku yihiin si khaldan wax laskuma fahansiin karo si wanaagsan laakiin haddii sida wanaagsan ugu dhigto tusta faa'iidadu leeyahay tusta tusaalooyin jira tusta gabdhaha waxbartay iyo gabdhahan waxbaran waxay isdheer yihiin siday faamigooda u kabaan ama ay qoysaskooda u caawiyaan inay u baranayso inay ninkeeda garab istaagto ama awlaadeeda ay kabto bari ka maalin wax kasta iman kara soo ma inay sidaa markaa ay u fahamsiiso oo ay la tashato haddii dee marka horeba ka ahayd sheekana dee taasi xal ma leh oo qofku waa in marka horeba ay jirtaa ka go-naansho waxbarashada markuu galay su-aasha labaad soo goobo waxaa jira freeya oo aad booqan kartaan meelaha caqabadin kaga iman karto nutrition horta wax loo baahan yahay dadkuna ma fahamsana dadku caafimaadka laba bayn bay ka fahamsan yihiin waxay ka fahamsan yihiin dhakhtar iyo neeras qofkaas ma dhakhtar baa ma neeras baa public health lama oga faa'iidadiisa public health waa cidii dhannayd ogaan lahayd maxaa inagu jira xawnada maxaa inagu keena soorsku ka yimaada sidee loo xaliya waa qaybtii dhannayd ee caafimaadka laga soo hagay waa meel wax laga soo saarayay laga ogaanay hadhow lagu soo saarayay dawo hadhow lagu soo saarayay xal hadhow lagu soo saarayay eeriyada ku badan yahay eeriyada malaarida ku badan tahay eeriyada kale shuban ku badan yahay maxaa ugu wacan nadaafada xun biyaha xun waa qaybtii markaa bulshada wax muhiim u ahayd lama fahamsana waa wax loo arkaa shaqo yar oo gaaban oo caafimaadka xagga dambe ka soo gashay laakiin waa madaxii caafimaadka taasna waxaan kula talin lahaa inay wasaaradda caafimaadku ay dhagaha u furto fahamtana dadka public health kana laga shaqaysiiyo waxaan arkaa public health loo barayo loo talagalay sidii neeras kala barayo irbad iyo waxa public health wuxuu baahan wax ka badan inuu barto wuxuu baahan yahay jeemkan keenaya disease-ka halku ka yimid inuu soo saaro jeemska inugu badan inuu soo saara public health waxaan u baahanaa in inta la baro ka badan la baro jaamacadaha baraana ay bedelaan sida saxda public health ay u baraan dowladuna ay wasaaradda caafimaadkuna iyo gobolkiiba ay u aqoonsadaan dad loo baahan yahay oo wax la weydiiyo waa top weeyaan nutritionkuna waa wax kaloo isna tiir dhaxaada waxa inagu badan nafaqadarrada maxay ka timaadaa dietkeena xun soo nafaqadarra marka la sheegayo waa laba ama qofkii wuxuu cunay waxaan sax ahayn oo caruur waxaad arkaysaa obese noqoto burbuuran oo hadhow maxay ahaydaan macaan ku dhacay ama xanuun ku dhacay ama dadkii waaweynaaba cuntadeenu ma saxna waxaad arkaysaa in qofka xanuunsan uu leeyahay macaan baa ku dhacay cuntada ha loo saxo qof kastoo inaga mid wuxuu baahan yahay inuu cunto saxan cuno guryaheena waxaan u baahanahay cunto saxan inaan cuno cunto fiican baan haysanaa oo beeraheeni ka soo baxday waxay muddo in laga khashaafo laga sii guurayo oo ceeb tahay ninka shuuro cuna ama ninka sarreen cuna xilligii aan jarmalka tegay cuntadii iigu yaabka badnaa qamadi bay wax aan cuno waan garan waayay markaasaa waxaa la keenay qamadiba meesha yaalla lasoo kariyey suugeer lagu cunayo misir la kariyey halka yaalla intaasoo green vegetable halkan taalla
markaas maalin bariis arko bariiskii baan ku carray bariis fartaala leego aan keeni ba ahayn walaalkay baa iga soo booqday biljiniga yimiday markaas waxaan ku meesha cuntana kuma kariyaan anoo dibsanaya waxa meesha yaal qashin ma ku cunaan meesha isagoo in badan buu joogay markaa qurbaa isagoo yar buu tegay wuxuu yiri what the best my favorite food is sasar waxa weeyaan qamadiga weeyaa hada qamadiga madawaa qaxootiga laga bixin jiray keena calcad xataa maaha marka cuntada way naga khaldan tahay nutrition marka in la fahmo u baahan yahay goobaha in loogu tago ayuu u baahan yahay marka meelaha u sii baahan ee dadka nafaqo darada yimaadana waa xanaanooyinka soo xanaanooyinka haddaad tagtaan oo macallimiinta in la kaashataan way tegi kartaan cid idinka joojinaysa ma jirto jadwal samaysataan ood kala talisaan hooyadii under 5 ka oo dhan malnutrition-ka ka yimaadaan waarka carruurtoo kale qayb waxaa jirta nafaqa darada la dhigo qaybtaasina waxay u baahan yihiin cid kala talisa cuntadii waayo anagu geesrawaa baa noqonay waa daweyn aan u qorno uun ilmo nafaqa daranoo liitaa la keenaya caana sii kadibna buskut sii berina bax gurigii markuu tago bil kadib kugu soo noqday waayo muu helin tala caafimaad soo qaybta nutrition-kana waa tiir labaad oo loo baahan yahay soo marka goobaha tagi kartaan waa waarka nafaqa darada iyo xanaanooyinka meelahaas aad ugu baahan inaad markaa isku qaybsan oo community samaysaan service banaan ka baxda taasina waa su'aashii koobaad caateeyo kale waxaa laga leexiyey halkii uu socday education saalaxa kugu filan Professor Salebaan education kuma aha waxaan korin fiil kasta oo jira wuxuu u baahan yahay mastertii dambeeyay ka qalin jabada ma maxay ahayd health professional education maadaama macallin ka ahay jaamacadii waxaan u baahanahay inaan barto the way of teaching cida kaliya taqaano maxay waa faculty of education soo markii la ogaaday baahida loo qabo macallimiinta jaamacadda dhigtaana la ogaaday inay wada yihiin dhakhaatiir soo dhakhtaruun buu ahaa daynu daweeyuun buu ahaa waxaa la go'aansaday in la taringareeyo dhakhaatiirtii inay dhigi karaan ardaydii ay wax gudbin karaan soo education wax la yareysta ma aha waa waxa kaliya ee lagu camal beelin xataa dad school furato hadaad meel kale ka shaqeyso hadaad jaamacad furato soo wax ka tagay ma jiro fiil kasta oo la dhigo wuxuu u baahan yahay macallin muxuu u baahan yahay inuu aqoontii leeyahay the way of teaching soo u gudbin lahaa marka taasina waa topic muhiim laakiin caqabadu waxay ka timiday dadkii ma fahamsanayn soo waxa looga baahan yahay khibrad wadaag inay soo badiyaan inay fahamsiiyaan waalidiinta iyo dadka maxaydaanay saameynta kule awlaad wax baranaysa inay u daayaan choice-ka ilmuhu uu doonayo waayo waxa halka ka soo go'an buu ilmahan baran karaa waayo waalidku waxay u noqon kartaa khasaare ixtiraam hadduu u galo caqabad bay ku tahay wali wuxuu jeclaa way taagantahay waa kii maalmaha ka mid uu raadsaday tagay soo marka in marka hore wadada ilmaha rabo inuu ka gun gaaro la gaarsiiyo soo intaad maqlayso Professor Hebel baa yimid la soo marti qaaday Professor Hebel baa yimid waa education ka soo bixin education waa topic muhiim ah soo mid laga tagana ma laha taasna kaga baxaya soo waxaan uga fadhinaa khibrad wanaag inay talada sii wadaan insha Allah horta wax la barto khasaari ma jira labadii faculty soo bartay businesskii u horeeyay waxaan ku bilaabay shaqo abuur waxaan ku bilaabay dhaqaalaha guriga inaan ku manage gareeyo waxa laga yaabaa in 5 jeer dukaan ku noqon jirnay intaan diploma business ka qaadan oo maanta maxay ka soo qaad maanta dukaan wax kugu qoro maanta kan kale kugu qoro xilligan waxaan ka faa'iiday businesska inaan maxay dhaqaalihii aan minimize gareeyo inaan saving sameeyo inaan waxyaalaha u baahanahay aan hal mar la soo dhigo in wixii hadaan la dhaqaaleeyo soo waxa badan dayac kaaga baxaya waxaad ku bixinaysaa maxay hedaanay adoo wax ka khayr badan kula baxa ku dhaanta cid ka baahan adoo ku caawiya ku dhaanta soo marka waxaad fahmaysaa business dadka ugu la xijaarada badan Soomaaliya way aad u la xijaarada badan business because waxay og yihiin waxana soo waa nin wixii si ka shaqeynaysa ma ganacsada waan dacaydana waxana waa bakhaylin wax ma bixiya waxay dareemayaan waxana soo saareen Soomaa qiimaha lacagtu iyo shaqadu leedahay garanaya soo marka business waxaan ka faa'iiday inaan ku manage gareeyo guri waxaan ka faa'iiday inaan wax kala sii barto inaan shaqo sameeyo waxyaalaha ka buuxo kamid ah ayoo kala baartay ma kula shaqeyn jiray qaybta caafimaadkan teaching ka sameyn jiray qayb kale ka dhigi jiray marka waxaan raadin jiray income inaan kordhiyo waxay ku dhaatay markaan business ka bartay soo inta faa'iidaysa ma noqon markii hore beeriyo kale waxay ahayd khibrad igu duugan oo aan aad u jeclaa beertii horeysay in kan asaasnay hadda beer baan leenahay tacabka ugu badan beer baan geliyay marxuumkii baa asaasay Allah u naxariistay haddana beertii gacanta ku haya qudaar oo dhan iyo geedooyin waan ku beernay nursery waxaan u sameynay greenhouse-kii iminka waxaan rabaa inaan biyihii wixii u qaaday soo marka wax ka soo barato wuu ku taagan yahay
waad ka faa'iidaysaa wax aad ku khasaaraysa ma laha wan weyn haddaad barato wan weyn bay kuu taala faa'iidada maalmaha ka mid ah soo maanta la soo gaadhay maanta beeraley baan ahay social media waa caqabad taagan dhinacna waa faa'iido taagan xilliga anagu baranayni dee dib baan haysto librarigan tegi jiray waxaan ka fikiri jirnay buugga qaws haysto allaha caafimaad sara siiyo dr qaws macallin aadan uga biqi jirnay waa seerjari ugu dhigi jiray waxaan oran jirnay buug buu haysta imtixaan ka soo diyaaray buuggaas meel la kama helaysa maanta laakiin ardayga jooga muxuu helayaa abtulid baa isticmaala ardayda imkaan u dhignaa abtulidkaan u isticmaala iyo isticmaala abtulid maxay waa program minidkii u dambeeyay caafimaadka wixii kusoo biiray ama managementkii kusoo biiray lagala xidhiiray jaamacadda Nacmud way ku guuleystay sanadkan way taalaa iyo jaamacadda Hargeysa helay imaka awaan ugu intaan families ku jirnay ayaan helay waxaan u iibin jiray qoladii Mareykankii dadna waxay ku dareen waxay sabab u noqdeen in jaamacadeeni la aqoonsado oo Mareykanka ay baraan dadna Soomaaliland way ku soo caawiyeen Nacmud iyo Hargeysa group Soomaanta ardaygan u dhiga ee 4 yearka wuxuu ila isticmaalayaa gaarnaykan haysta isticmaalaya soo social media dhinaca def muhiimad weyn buu kala yahay dhinacna khasaaro kala yahay khasaaro kale waa maxay su'aashii hore ay daba taagan tahay ardaygu muxuu ilaawayaa basic wuxuu soo dhigtay de wuxuu ilaawayaa imtixaan buu akhriyay intii imtixaan ku akhriyay kadibna uu iska dhigay halkan uu iska daawaday tiktok maxaa la soo dhigay maxaa cusub maxaa soo dhacay maxaa yimiday dad isku diraya ama qof personalkiisa wax ka sheegaya in intaasoo qof ay daawato ama la falanqeeyo ama la dhiskareeyo soo maxaa kaa galay daadartiin uu dhib u leeyahay waa maxay dadku ma kala saarayaan waxyaalihii secretka ku waa qofku nolosha sir bay leedahay soo maanta sirteeda waxaan ila wadaagay inaad ka faa'iidaan wakiin nabiga calaysalaatu wasalaam duxaa markii lagu soo dejiyay maxaa lagu lahaa ka sheekee nimcada ilaahay ku siiyay u sheekee dadka u sheeg taadada baan ku yimid laakiin qofku sir buu leeyahay sir soo inuu qarso maanta daahban soo iibsaday dama ku badantay waliba maanta gurigiisa baan u leexiyay who cares gurigaadaas kala de maxaa ka galay gablay aad maxaa ka galay gurigiisa ka dhigtay maxaa ka galay waxa sameeyay TikTok caalamka waxa loogu talagalay dadku marka ka soo caanbaxayaan ama qofku hor uu soo socdo inuu maxay rabo inuu heesa noqdo wax kale uu rabo way isku iibiyaan inagu isku ma iibino maala yacni baanu galnaa in la isku caayo soo marka adiga daawanaya ka sii liita maala yacni maxaa daawanaysa waqtiga ugu luminaysa horta adoo isqiimee ayaa tahay adigu maxaa lagu amro inta markaad ogaato waxaad ogaanaysaa social media faa'iidadu ku leeyahay iyo khasaaro ku leeyahay khayr badan baa ka buux intaas oo tamar baa la dhigaa intaas oo xadiis baa ku jira su'aal kasto diinta rabtaad ka helaysaa wax kasto oo way aragnimaad ka helaysaa cilmi kasto rabtaad ka helaysaa soo dhinaca positive kan uga faa'iideysano dhinacan negative kan iska diino maxay hedaanay haweenka kale waa run way ku maqan yihiin waxa laga guur dhan oo la joogo oo dadkii saas wada yihiin oo dadkii maxaa ku dhacay danu markaan yareeran sheekan heli jirnay ciyaar baan heli jirnay iminka taaw yar markaan soo soo galo mobilkiisa sugaysa way qaadanaysaa nasriin way sugaysaa ku dagaalamaysa idib soo markaan waa inaan jiheynaa ka leexinaa dadka waa inaan bulshadeena ka wacyigelinaa taasina waxaan kusoo celinayaa khibrad wanaag khasaaraha uu leeyahay faa'iido waan isla bandhignaa soo waqtigaaga qaaliga maxaad ugu luminaysaa waxaan faa'iido kaa soo gelin hadaad bila camal tahay ku meero waad aragtay laakiin hadaad ardayba tahay maxaa kuu soo arkay ka faa'iideyso wixii ku yaal shaqa ku taalade miyaad damac lahayn miyaad hal lahayn maana doonay inaad noqoto hogaamiyihii berito dadka shayna soo hogaaminaya way waaweynaadeen way ka tageen kuwa maanta jooga way ka tagayaan maanta yaa wasiirayno ah dadkeeni intii naga horreysay dee loodkayga soo ma dee hebel iyo hebel baan garanay inta maanta xil haysa beriidinka ku soo xigay maxaad la tagaysaa meesha maxaa kaa horeeya social media ka shaqeyn markaad meesha tagto ummad baa ku sugaysa soo markaa waxa la waa caqabad taagan rag iyo dumarba ha laga tago waa qofkii taargad leh ee raba in ummadan wax u qabto ilmuhu markuu dhasho maxaa loogu duceeyaa kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa badaya soo ma dabar isku daba dhigaa soo ma dee taa xageed kaga tagtay reerkiina waa ku sugaya hooyo aab baa ku sugaya ehelkii baa ku sugaya dal baa ku sugaya ummad baa ku sugaysa dadku wadaniyin weeyaan waddankooda waa u dhintaan soo ma inaga laakiin ma jirto reer hebel baa ka weyn reer hebel laha laga guuro rag iyo dumarba waxaa tuunbaa kaa raacaya reer hebel wax kuu qaban maayo haddii reer wax isugu qabanayaan inta liidata dan yarka wuxuu qaban lahay soo ma imisa qabiiladeena buur ah oo dhulka taala oo jaamacada woonida dhigan oo dhulka iska joogta maxaa wax loogu qaban waayo maanta markuu shaarkaagu caddaa ee lagu arko inaad shaqaysato warwaani reer hebel lagu tirsanaya maxaa liiska lagu tirsanaya maxaa ka miskiinka lagu soo dari waayo
taana aan ka guurna insha allah hadduu ilaahay ah hadda maanta ilaahay baa iskale inoo suuro geliyey barnaamijkii khibrad wadaag inuu si fiican inoogu soo gabagaboobo caawaxa marti inoo ahaa doctor hodan jaamac cabdi oo aad khibradeedii aada uga faa'iidaysateen waxaan uga mahad celinaynaa waqtigeeda qaaliga ah talada hooyanimo dardaaranka doctor uu siin lahaa dad bulshadiisii ay nala wadaagtay sidoo kale iyo su-aalihii aad weydiiseen oo wanaagsan siday uga jawaabtay waa khibrad wadaag xalqadii 8aad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu